بسم الله السلام عليكم دمان وين سلام يا أصحاب تيك توك waxaan leeyahay fadlan nasoo follow gareey hadii hore noo soo follow gareyn copy link kana taabta si share gareey la wadaaga asxaabtiina looftana ha ka ilaawinaha in doora waa mashquulay 10 badan ma rabin in soo jeediyo dad badan baa su'aalo badan soo weydiiyay insha Allah chance-ka ugu yar inaan ka soo jawaabo waa jeclaa inta ugu badan oo ugu muhiimsan baan ka soo jawaabaya insha Allah dad badan baa soo weydiiyay su'aasha ugu badneed waxay ahayd si hadda u jeedaan oo kale WhatsApp qofkan uu ku jiro kale reconnecting buu leeyahay marka sidee u joojin karaa ama reconnecting kaas uga saari karaa inta badan internet la'aanta oo u sameyn karaa call-ka WhatsApp marka ku jidid waxyaalaha dad call WhatsApp ku muddo ku jidda ama ku hadashid in badan buu ku soo saaray calaamada sida reconnecting marka khadka uu qofku uu ka daciifo kale marka waa easy waa iska joojin karaa dib dambe ku soo saari may insha Allah hadda talaabooyinkan maraya ama dhid laakiin fadlan follow na soo dhaha la wadaaga asxaabtaada link copy link-ga 5 jeer taabo kadibna waxaad tiraahdaa lofta saar waa mahadsantihiin waxaad tagaysaa WhatsApp-kaaga tagaysaa waa step yar oo ku tusay WhatsApp-ka ma ku dhufatay WhatsApp-ka waa tagtay waa ku dhufatay saana kugu soo baxaya kadibna halkaas 3 dhibcood baad taabanaysaa kadibna waxaad dhahaysaa setting-ga kadibna hoos baa u soconaysaa storage and data baad tagaysaa kadibna waxaad dooranaysaa use less data from calls wuxuu ka caawinayaa inuu koolasha daatadoodu yareeyo marka daata yarna ku isticmaali karo buu ka dhigayaa camal qofku marka daatada daciif noqoto si hadhow wuxuu ku kale markuu reconnect meesha oran lahaa caadi buu ku soconayaa qofki marka waa mahadsantihiin 10 badan baan soo wadaa biidinkii fadlan lofta naga xasdinaha like naga xasdinaha share sidoo kale follow sidoo kale waa mahadsantihiin oo billahi tawfiiq